caawa waxaynu gelaynaa odayaashii qarrood baynu gelaynaa caawa daruurta ayaga hoganaysa moogta nimankaa reer mudug asxaab baanu nahay waa niman anigu nimankaasaan ku haystaa moogta niman wax qariya ma galabta markaan soo socday bay ii yeereen wariyaa kaale biriirow adaa reer bari ahaaye nimanku waa 10 bahoode bahdirta haddii la reebo bahaa kale yaa u baahan bay ku leeyihin moogta markaasaan ku yidhi oo bahdirta maxaad u reebi wuxuu yidhi xeerkaan u bannayn iyaga bataatan ma beratamaan dadkuna lama beratamaan bursiimo kaley qabaan booqashada boqorkaa ku filan mid baa yidhi war nimankii bah dhulbaantay mee buu yidhi moogta sow mid beri geel ka lumay oo nimanka ku jira baa yidhi war bil baan baadi doonahaa anaa badi beesha maray nimaan 100 geela wadan nimaan ari badan lahayn nimaan baabuur ku guurin anigu kuma arag bahdaa barwaaqada taalmiyiga bendarkaba lagama helo war ha barakicin reeraho ma fahamtay siyaasadaha ugu baaqin nimankaas halkooda iska joogeen buu leeyahay waqti saamid baa yiri oo bahya qoobtiina meeday kolkaas yiri war ma hilaac bilig la u baxay ma biyo iyo baad leeho biyo meel baad leehiyo ma bur caws lu soo arko aftiin la beesha raray waa aqalkii guud moogtahay ma bari hoosuu u dhigay ma ballanqaad bay qabaan ma cid bay bari taarayaan ma hayno bareerahooda nimanka bareerahooda ma hayno waxay dabacsan mid kale yiri war xarigii baylamee markaasuu yiri war baarlamaanka ileeyihiin waa saxamar bay jiraan way moogtahay saamid baa yiri hadda ma bahadu bays soo yiri waa waray war kuwaasi boohaaro weey garow iyo baalasheeda birta dheer bay degaan laba isagay moogtay reer mudug waa fanay moogtay markaas mid yiri war heedhe baha calidoodi aaway baha cali yuusufeena kuwii la midka ah wuxuu sheegay isxulkii moogtahay markaasuu yiri ma bahwadaag war bahwadaag gabar wax baratay had waliba PhD degree ayaa sanadka u fadhida markaasuu kulay maxay taas war ma jaalnayaaliga baa la yiraahdaa bataqaanada moogtay mid baa wuxuu yiri war heedhe nimankii u badnaa kahrabada iyana beeshoodi meeday moogtay kahrabada wad garanaysaa moogtay Allah yarxam abshir moogtay ku rushay macna berigi kolkaasuu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun sidii abshir loo budrigay wallahi booskii nin buuxsha bariyaha caamiriga muuqan waxba sabidhaamay eega nin baa soo baxay bir labaad markaasuu yiri kaasi muxuu ahaa war jaqanaf baa leeyahay Dubai waxba ka yimaadaan kulii nimanka cajaaysan halkay marka u socdaan bay tagayaan moogtay sabab nusuulkii haday ku amaanaan waa cajaayib mid baa istaaga wuxuu yiri war niman badan baan ogahay badaha marabaan ogahay baayac mushtaraan ogahay barakaan nusle baan ogahay bakhaarale baan ogahay waliba beesaaniyiin markaasuu ku leeyahay nimanka bah gareen la yari war nimanka bah gareen la yari buntland iyo beelaheeda burcad baa la isku mariyay iyagayna badbaadin karaa nimanka codka aan ku boobno waliba la mubaayacoona sida asxaabtiiba ku leeyahay marka taakiid buu sameeynaya oo mid baa wuxuu ku leeyahay war nimankii xaaje injir lahaa miya markaasuu yiri ha war nimankii cali xaaje siciid lahaa miya markaasuu yiri ha war heed xaaje mare iyo xaaje faarax nimankii lahaa miya markaasuu yiri ga walla war nimankii xaaje allooray ciise mudan lahaa miya markaasuu yiri ha war wala loogu noqonay buu ku leeyahay waqti markaan mikrofoonka dhigo waa garanaya waxa doonaysaa waqti caawa kafta ku dhinac buu kararaya waa abtiyaysan yahay war wiil abti loo yahay hadaan kaftan ugu heli waayo ma aakhira xisaabta uga heli